السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابة الشرف له وقيمي بدن ومركلة إيه مقال بصبت هذه دعوانيسان وبارين أوفيشيال دمان أنتو كحران بارين أوفيشيال ومهد سنتين ولا لا أنت على هاي سود الدوادة الحمد لله كنت كي كن أيان قارني هذا كنتم كي وضعفني الحمد لله سبسكرايبك بالكيركا قدودك دع سيدا أو سيسن وين كمهد علينا ومهد سنتين ولا لا أنت على هاي سي شير قرايا كلي بدينا sababtay tahay qisooyin inta dee falcelinta aan aragna ama asxaabta toos noo soo wacda ay mar walba nooga mahad celiyaan ay dhahaan ummadda Soomaaliyeed boos fiican ayaad uga jirtaan baafin haday tahay dad badan ayaan isku halnay oo iswaayay qaarkood waxaan soo ogaanay in ay dhinteen oo dadkaas ilaahay lahaa uu oofsaday marka aad u mahadsantihiin intii dhimatay ummadda muslimka Allah u naxariisto maanta waxaan noo wadaa qiso aad iyo aad وحنون بدن أو حنبارسن حنون جارة قبل ولا شيء أنا والسلام يا كان أبوها كان سلام يا قصة داس وحي أسوق بسي هو يوينك سوماليات يولي بقى أبياشة سوماليات إن أي مركز تا أرنتاس أي مركز تا إسكا إلاليان أو أي سن كوكين sababta ay tahay waa arrin aad iyo aad u xanuun badan in aabaha dhageysta ama hooyada dhageysata xanuun gaar ah ayay ku qaban doontaa waxaana filayaa insha Allah in ay guriyo badan oo Soomaaliyeed in marka ay dhageystaan in ay dhahaan ilaahu ha nagu keenin inta ay ku dhacdana ilaahayow ka badbaadi inta ay ku dhacdayna ilaahu rabbiyo maxaan dhahnaa uga gargaar inta ay ku dhici doontan waxaan leenahay Allah ka badbaadiyo sababtay tahay waa arrin muruga gaar wadata waa arrin xanuun badan waa arrin in badan ragga Soomaaliyeed ay sameeyaan ayadoo markaas ay ka timaado arrintan burbur ku yimaada qoyska markaas marka burbur qoyska ku yimaado aabaha wuxuu ka fursan waayo ayuu sameeyaa laakiin asagu waxba ma oga oo mar walba ilmihiisa waa jecel yahay xaaska marka uu guursadana uu jecel yahay labadaba marka ilmihiisa meel cidla uga dhaqaaqi karo wuxuu ku qasban yahay marka ilmihii in uu meelayo marka arrintan waa arrin ku saabsan ilmaha yar yarka markii ay kala tagaan hooyada iyo aabuhu dhibaatada soo gaarta qayb wanaagsan baa jirto marka hooyadood gacanta ku haysato ama aabahood gacanta ku haysto oo si qurux badan iyo nolol wanaagsan ku nool markaas laakiin ilmo badan baa jira oo dayacaas iyo rafaadkaas soo mara marka qisooyinkii aan soo gudbin jirnay qisadan waa ka gooni waa markii ugu horeysay oo qiso noocan oo kala aan soo gudbino marka la sii wadaaga asxaabtiina kale si share gareeya like-tana waxayna gaarsiinaysaa dad badan oo markaas aan arag Bahrain official ayay arki doona oo ay u bandhigaysaa marka like saartaan marka daawada heeska kay daawna like dhacay busi koobinta qurux badan siina share garee la sii wadaaga saxaabtaada aad u mahadsantihiin qisadan sida tan ayay ku bilaabanaysaa gabadhan ii soo gudbisay oo walaashay ah waxay tiri anigoo aad iyo aad u dhalinyar ayaa waxay tiri wiil baan isjeclaanay wiilkii markii aan isjeclaanay wiilka wuxuu ahaa wiil xaas hore soo maray markaas oo aniga iga horeysay marka waxay tiri wiilka aad iyo aad wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan wiil dabeecad wanaagsan wiil baariya ma sha Allah aniga intay aan ka bartay markaas muddo badan markay aniga iyo asaga sheekadeena iyo xiriirkeena iyo haasaabuhu uu socday bay tiri ayaan waxaan ku fakiray wiilkan waa nin nolosha la wadaagi kartid oo ku hanan kara oo dhaqan kartid waxay tiri waxaan ku fikiray in uu yahay wiil wanaagsan marka wiil badanna horay ayaan u soo shukaansaday bay tiri marka wiilkan ka gooni ayuu iiga noqday dabeecadiisa markaan aan arkay nin aan been badnayn buu ahaa waxaan ku fikiray marka kan ayaad mustaqbalka la wadaagi kartaa haddii ilaahay calaf kugu daro waxaan go'aansadayba in ninkan aan guursado ama uu noqdo markaas saygayga ayaaba waxay tiri halkan soo dhigtay
si kastay ahaataba waxay tiri markii aan muddo xiriirkeena wada soconnay oo anigii asagii waxaan go-aan ku gaarnay in aan isguursano. familkaygii ayuu iga soo doontay. familkayguna waxay ahaayeen bay tiri famil hooyaday aniga waxaan u ahaa bay tiri curud ku xageen. marka aad bay hooyo ii jeclaayeen, haddana hooyo aad baa ugu roonaa bay tiri, hooyo iyo aababa way i jeclaayeen. marka wiilkan wuu isoo doontay bay tiri markuu familkayga u yimid, hooyo iyo aabe maasha allah way igu soo noqdeen. waxay dhaheen maandhay wiilkan ayaa ku soo doontay, wuxuuna noo sheegay in aad muddo wada socoteen, ma rabtaa ninkan? haa baan ku iri bay tiri hooyo aabe waa nin wanaagsan ninkan, muddaan la socday, balwad ma lahan, waa wiil shaqaysta, waa wiil aan aaminsanahay in uu naftayda kaafin karo iyo wixii ilaahay markaas na siiyo. hooyo aabe waxay dhaheen haddaa adigu dooratay dee anaku kuu diidi mayno maandhay, khayr allah kaa siiyo, ilaahay kuu barakeeyo. okay wiilka waxay tiri wuu soo diyaar garoobay asagoo sooriyo wanaagsan iyo farxad u wada waaridkii. sidii ayaa la iigu meheriyey bay tiri wiilkii maasha allah. meher wanaagsan baa la ii dhigay. muddo yar ayaan gurigayga sii joogay intuu gurigii iyo wax diyaarsanaya. gurigii iyo wixii soo diyaariyay markaa saxaabi waa in ka hor dhacay. waxay tiri wiilkan wuxuu ii sheegay in uu reerka in uu haysto markaas gabar yar oo jirta 3 sano, hooyadeedna ay kala tageen, hooyadeedna ay u dhigtay. wiilkan laftigiisa marka hooyadiis mar hore ay dhimatay, asagoo yar bay dhimatayoo waxaa korsatay habaryartii hooyadii la dhalatay. marka wuxuu yiri walaalay habaryartay maanta waa qof weyn oo waayeela, gabadhayda yarna ma doonaya aniga korsiimahayga habaryartay lahayd oo kusoo dhibtootay, ma raba marka ilmahan anigu dhalay in aan ku dhibo habaryartay ama hooyaday macaan oo dhib la-aan i dhashay. marka macaanay waxaan kaa rabaa haddii ilaahay isku kaayo guuleeyo oo maanta aan guri wada degno, waa markay sheekadu u socotay labadooda, waxaan kaa rabaa in aad gabadhaa yar dee waa dhib la-aan baa dhashay, ana waa ilmahaygii, in aan gabadhaa yar haysano inta ilaahay ubadna siinayo. markii igu horreysay buuba shukaansiga ku bilaabay arrintaas. anigana maadaama aan jeclahay oo ninkan aan mustaqbal ka rabo, dee ilmihiisa dhibba uma aragba. haye baan ku iri. waxay tiri adiga muddo yar markaan gurigaygii joogay sidii ayaan ku aqalgalnay, aroos wanaagsan buu ii dhigay, sidii baan gurigaygii ku tagnay. markaan gurigaygii tagnay oo aan 7 ka baxnay ayuu wuxuu sameeyey gabadh yariistaad inuu ii soo wareejiyo oo ii keeno. gabadh yareed buu ii keenay bay tiri. gabadh yareed ayaan sidii ku haystay. anigii baa waxaan noqday walacaad u daran oo waan walacay bay tiri, uur baan yeeshay. markii aan uurka yeeshay bay tiri waxaan ahaa bay tiri dadka uurka mataga badan, mar walba aan sariirta in mataga la iiga qaado maahane aana awoodin xataa in aan istaago mataga iska duwo. haddana waxay tiri dumarka Soomaaliyeed way kala karti badan yihiin, way kala adeegyihiin. waxaan ahaa bay tiri haddii madaxa layga qabto aniga dhanba waxaan noqdaa bay tiri si kale oo karti adeeg ma lahayn oo ilaahay ba iima dhalin. marka waxay tiri ninkayga baari buu ii ahaa, sariirta korkeeda ayuu wixii iigu keeni jiray bay tiri. markaas garaafihii ama sakeelba ama beeshin habda qofku si u yaqaan, inkastay laba aan u kala aqaano, beeshinkaas ama sakeel buu sariirta korkeeda iigu keenaa bay tiri. halkaasaan ku matagaa, guriga cunto kama kariyo, aad baan u silcay bay tiri oo ilmihii ugu horreeyay waa korfaaf xun baan ku mutay bay tiri. asagaa cuntada maqaayada nooga keena, shaqadu ka soo ordaa bay tiri, guriga cuntada wuu noo karayaa, laakiin anigu guriga cuntadiisii waaba ka soomayba oo afka ma saaro. qudaar iyo wuxuu suuqa iga keeno maahane cunto guriga kamaba cuni karay dhahda. si kastay ahaataba waxay tiri markaan walaciisa ugu rafaaday indhaha waxaan ka arki waayay bay tiri gabadh yar tahay, waxayba ila noqotayba mas guriga ii jiifa. aad baan ula culoobay tiri gabadha yar tahay. markaasna waa adigu 3 sano iyo bilay jirtaa. marka waxay tiri gabadh yar tahay waa arki waayay, indhahan ka qaadi waayay. hadda markaa xasuustay tiri waan ooyaa oo mar walba ilaahay ayaan baryaa dembiga aan ka galay ilmaha yar oo sabiga oo saqiirka. ilaahay baan ka baryaa markasta ilaahay uu iga cafiyo.
ilaa haddana ninkaygu ma ogaan. marka inaan ka hor dhaca ma raba sheekada. wax tir gabadhii yar tahayd ayaan tinta doofaarka ka nabcastay. heer waxaan gaaray gabadha yartaa cunto yar buu u sameeyaa bay tiri oo habeenkii u diyaariyaa. heer waxaan gaaray bay tiri cuntada gabadha yartaa aan rabo in aan siiyo markaan u diyaariyo ay naftaydu ay dhahdo see u siinaysaa aan musqush ku shubo. caanaha gabadha yartaa markii aan u diyaariyo oo siiyo waa ilmo yar 3 sano jiraa si fiican dee waxba inaan ku qasba maahana dee waa ilmo yar bay tiri. marka intaa uu maqan yahay bay tiri gabadha yartaa haddii caano tahay haddii cunno caadiya tahay afka uma saaro. markuu yimaado bay tiri gabadha cuntaydu gariiraysa asagii ku dhacdhacda. anna wuu og yahay inaan xanuunsanahay laakiin ima oga gabadha yartaa in aan silcinayo, ima oga gabadha yartaa in aan nacsanahay, isma dareensiiyey tiri in aan gabadha yartaa nacsanahay, laakiin anigii allah unba is og. intaa u maqanya waxay tiri dilka iyo hagardaamada iyo qanjuruufada iyo waxa aan ku samaynayo aniga unbaa og bay tiri. si kastay ahaataa waxay tiri gabadha yartaa markuu yimaado wax siiya intaa u maqan yahayna dhibaatadaasaan ku haya. markii waxay tiri aan soo bila dhawaaday oo aan markaas adigu dhowr bilood aan gaaray bay tiri 9kaygiina aana weli gaarin bay tiri oo aana gelin ayaan waxaan sameeyey gabadha yartaa go-aan waxaan ku gaaray sidii aan nafta u dhaafin lahaa. qaabkee ayaa nafta u dhaafiyaa baan in badan ku fakara gabadha yartaa oo waxaa iga go-an bay tiri gabadha yartaa in aan dilo ilmaha aan dhalayaba inaana dhalin inta aan dilay gabadhaas. niyadayda waxay ku kalsoon tahay oo aan habi aan ku ahay gabadha yar in aan dilo, laakiin qaabkii aan u dili lahaa ayaan raadinayaa. de waddankeena hooyana dhaqaatiir baaraysa oo markaas ilmahan yarkaa baaraysa ma jirto. maalintii dambe waxay tiri si kasta waa yeelay waa ceejiyaa barkin baan waxay tiri saa inta wajiga uga saaraban ku ceejiyaa intaas uu iga maqan yahay. gabadh yartaa waa dhiman weyda qaabkay ku dilaan haddii aan si fiican cidiyahayga dhuunta aan ugu dhagana dee hadhow way ka muuqanaysaa ayaan waa niyadda iiga jirtay dhahday oo haddii aan ceejiyo cidiyahaygii iyaa ka muuqanaya. xasbuna allah wa nicmal wakiil. in badan baa si gaara gabadhaas ku wareysanay. marka waxay tiri maalintii dambe ayaan waxaan is iri gabadhan yar way dhiman weyday barkin ku ceejisay ku samaysay maxay ahayd ciddi haddaan damca inaan ku dilo waa lay arkayaa mindi kuma dili karo qaabkay u dilaa. waa ilmo yar ma hadli karto aabaheed waxba uma sheegan karto waa yartaa haddana ilmaha hadalka u dhashay ma ahayno hadalkeeda macnaha aad gabadha yartaa uma hadal badnayn. ilmo waxaa jira hadalku aan durba ka soo bixin. waa ilmo intii ay haysayba dee silic ku noola inkastay mar walba dhahdo. marka si kastay ahaato maalintii dambe waxay tiri waxaan go-aan ku gaaray in aan soo qaado sunta jirka oo aan caanaha ugu qaso oo aan siiyo. maalintii dambe bay tiri waxaan soo gatay bay tiri suntii jirka waxay u soo wadaa gabadha yartaa in ay ku disho. ilaahay waa joogaa. waxay tiri suntii jiirkaan soo gaday gurigaan keenay waan qariyay bay tiri. markii aan qariyay muddo dhowr beriya ayay guriga ii taalay. markastana waxay tiri markasta aan soo bixiyo waan isceliyaa. teedi baa weli gabadha wax ka laamaya. maalintii dambe tiri go-aan baan qaatay suntaan waa soo gadatay baan is iri bay tiri waa in naftayda ayaan la sheekaystay. marka waxaan iri bay tiri waa in aan dilo maanta gabadhan yar waa in aysan maanta dhaafin. waxay tiri maalintii dambe go-aan ayaan gaaray go-aankii ugu dambeeyey oo aan kasoo noqosho lahayn ayaa naftayda iyo anigu gaarnay bay tiri. maalintaas waxaan go-aanka ku gaaray in aan gabadha yar khaarajiyo oo aan dilo. waxay tiri suntii dhowrka beri ii taalay waa suntii jiirka ayaan soo qaatay
caanihii gabadha yar baan soo qaatay, caana liidihii waan qasay bay tiri. markii aan qasay suntii ayaan ku daray. suntii markii aan ku daray gabadha yar way hurday bay tiri. hurdadii ayaan ka soo kiciyey, wejigaan ka soo dhaqay, agtayda ayaan soo fariisay. markii aan agtayda soo fariisay dhahday, waxaan ku iri hooyo hoo caana. caanihii ayay iga qabsatay, caanihii ayay cabtay. markay caanihii cabtay oo aan caanihii siiyey bay tiri, daqiiqada yar kadibba gabadh yareed way matagtay. markii ay matagtay waan naxay bay tiri. marka waxaa iskay tusay hadday matagtay in ay badbaadayso, oo inta la qaado ama la baaraayo la dhahaa ilmahan sun tajiirkaa la siiyo, ama in la ogaadaba ilmahan yar sun buu cabay camal. markii ay matagtay bay tiri, isla markiiba afkaan ka dhaqdhaqay, dhabtaan soo saaray. markaan dhabta soo saaray bay tiri, cabaar ayay gabadha yartaa rafanaysa, oo cabaar ayay nafta kusii jirta. si kastay ahaataba wax yar kadib bay tiri, gabadha yareed way isku soo kogtay, lugihii iyo gacmihii ayadii oo dhan si kale noqotay. ilaa naftaaba kasii socota gabadha yartaa. hooyadeedna meede kadib ayaa ogaan doontaa. waxay dhahday markay isku soo kogtay gabadha yarta ahayd, waan qabtay bay tiri, wayba iga xoog badnaatay gabadha yarta. ana xaamila ahay bay tiri. gabadha yareed bay tiri, cabaar markay saa ku jirtay waxay noqotay baraf. waa qabtay bay tiri, waa rogrogay ayadii dhan bay tiri. gabadha yartaad waxay noqotay si kale. cabaar yar markaan jooga waxaama arkay bay tiri gabadha yareed oo laf noqotay saa u tigtigan, dhinacna u nuuxin waaye. waa ooyey, waa qayliyey, waa cararay, banaanka u baxay bay dhahday. dariskii baa igu soo baxay. marka dariskii markay soo baxeen, gabadhaydii yareyd baa lagu soo booday, gabadhaydii yareyd baa lagu soo booday anoo leh baa banaanka u booday dhahday. dariskii markay soo yaaceen waxay tiri, maamooyinka digriyaa baa ii dhaweyd oo maamooyinka nasrada tuma ah. maamadii baa soo oroday gabadha yareed. waxay tiri, gabadha yartaa maxaa ku dhacay? way dhimatay. weligay ma arag bay tiri qof naftu ka socoto, weligay mayd ma kor istaagin, laakiin waa maalintii iigu horreysay. maamadii gabadha yareed waa isku duuday bay tiri, go' bay saartay. gabadhaan yar waa mayd bay tiri, maxaa ku dhacay? hooyo gabadha yareeyada hurda bay waxay la soo booday qaylihiisas. cabaar yar kadibna saanay noqotay. aabaheeda taleefon loo diray. waxay tiri, odagaygiiyo ordayaa yimid. gabadha yar maxaa ku dhacay marka? gabadha yar maxaa ku dhacay marka? bay uga dhigtay bay tiri aabaheed. weligayna muu arag anigoo gabadha yartaa wax dhibaataa ku samaynayo. weligay igamuu dareemin in aan dhibsanayo. markuu soo dhow yahay kuwa midda aniga hadda ilmahaana urka ku sido in aan ka jeclahay baan tusaa, oo mar kasta halkaas ayaan gashan jiray bay tiri. wuu qaracmay bay tiri, hadal kalaba waa laga waayay. maxaa ku dhacay gabadha yartaa? waxaan ahaynba. adii gabadh yareed bay tiri, familkaygii baa yimid, habaryartiisaa timid. gabadh yareed sidii ayaa lagu aasay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waa arrin murugo badan. gabadh yareed markii sidii lagu aasay, hooyadeed ma joogto markaas dalka. way maqan tahay oo way ka maqan tahay dalka Soomaaliya. gabadh yareed sidii ayaa lagu aasay.
waxay tiri marka aniga waan dhalay markaas waxaan dhalay wiil waxay tiri marka gabadh yareed markii la soo aasay oo xoogaa la joogay aabaheed quraan baa la saaray xoogaa wuu qalbi fuqay sababta tahay markuu qofku kaa xanuunsado ama ilmuhu xanuunsado oo aad la dadaashid oo aad rogrogatid waad ka samri kartaa laakiin ilmihii caafimaad qaba markaa saaka ka tagtid oo haddana daqiiqado kadib lagu dhaho waa dhintay dee hooyo kasta ama aabba kasta wuu dareemayaa xanuunka waxay dhahday marka hooyadeed ayuu taleefon u diray wuxuu ku yidhi gabadh yareed way dhimatay waa lagu soo booday sidaas uu ugu hooyadeed nin kalaa qabo ilmo kale leedahay gabadha yariistahayd hooyadeed waxay tiri sidii ayaa gabadha yartaa in lagu soo booday aabaheed uu u haystaa laakiin ilaa hadda aabaheed ma oga gabadha yartaa in anigu aan dilay weligayna igama dareemin mar kastoo aan damco in aan u sheegana waxaan is dhahaa haddaad u sheegtid gurigaagaa ku dumiyay sababtay tahay waan jeclahay ninkayga maanta waxay tiri ilmihii labaad ayaan u hayaa oo aan u dhalay naa kalena moolahan anigu dunida iigu jecel yahay gabadh yareyd oo aan hayay oo aan eedada u ahaana in aan anigu gacantayda ku qaarajiyey saygaygu ma oga ayay tiri marka waxaan ka rabaa bay tiri talo ummadda ku xiran Bahrain Official taladaas oo ah maanta ilmihii labaad ayaan u hayaa saygayga waan jeclahay dambi waxaan ka galay ilaahay oo waa dhiig anigu aan galay asaguna ima cafin karo gabadha hooyadeedna ima cafin karto laakiin rabbi baan ka galay taas anigii ilaahay ayay noo dhaxaysaa وانا كقومي maanta caqliga aan leeyahay hadaan lahaan lahaa kuwaana dhalay iyo tan aan dilayba aniga waxba ima kala ahayn maantay wayba ii shaqeynayd oo waxay ahaan lahayd gabadhaydii laba wiil baa haystay waxay ii noqon lahayd gabadhaydii curo oo kale laakiin caqli yaraantayda iyo nacaybka gabadhan yar iigu beermay iyo shaydaankii oo yiri gabadhan yarta dil ayaa isku keedarmaday marka waxay tiri maantay hadii aan u sheego saydayga oo aan gabadh yareed anaa dilay waxaan ka baqayaa in ay aniga iyo asaga dhibaato naga dhex dhalato mid waa aaminsanaa hadii aan dhaho saasa jirta in waxaan aaminsanaa horta aan kala tagayno sababtay tahay waan siray dambi waxaan ka galay bay tiri Allah subhanahu wa ta'ala dambiga labaadna waxaan ka galay gabadhii saqiirka ahayd oo aan nafteeda gooyay dambiga saddexaadna waxaan ka galay saygayga ilaahay way ogyahay bay tiri gabadh yareed oo saqiirka ahaydna wayba dhimatay laakiin maanta culayska ay haysta iyo dhibaatada aan dareemayaa waxay tahay saygayga oo aan u sheegi karin oo aan dhihi karin gabadh yariistahayd ana dilay marka maanta waxaan ka rabaa talo in dadka ku xiran Bahrain Official inay ii soo duceeyaan waa rabaa waxay tiri talana aan ka rabaa waxay tahay horta ducadaas oo ah ilaahay inuu qalbigayga fariisiyo oo ololkan iyo isla hadalkan ku furan ilaahay inuu iga kor qaado ilaahayna uusan gurigayga iga dumin sababta tahay saygayga iyo awlaadayda iyo gurigayga waa jeclahay ma doonayo ilmahaygu in ay mutaan maanta haddaan kala tagna xataa ilmahayga lagama yaabo in qof bili aadana u hayo hooyaday macaana Allah ka dhigo ma ogi haddaan dhinto laakiin ma rabo in ilmahayga adeer uu soo dhex galo aniga eedaa dhibaatada aan sameeyay adeerkuna waa sameyn karaa oo adeerkuna dhibaatada aan gabadha u geystay de ilmahayga waa ka jari karaa in gabadha ayab baan dulmiyay ninka dambe aan guursadana soo lagama yaabo inaan dhibaatadii aan ka galay ilmaha saqiirka ay saygayga inuu ilmahaygan ka jaro way dhici kartaa marka ma doonayo inuu gurigaygu damo inay ii soo duceeyaan in saygayga ilaahay haddii aan u sheego ilaahay inuu igu aamin laakiin markasta waxa igu jira laba calooliyo marka in aan qariyo oo inta adduunka cimrigayga ka dhiman ana sheegin oo maxkamadda ilaahay aniga iyo asaga ilaahay maxkamadda ilaahay nagu kala saaray
إن أنت أدونك أن أقشاده إلهي أضاقيقا وإيقا لغا باري داعدي وإي أها يسيدو نوش عليا مانتا أنيقي أبادكيقا إنو نوسي تشعلاضو إلهي نوسي لبتشي بار قلبي جيسا إن أمد الصوماليات إيسو باردو أو إيسو دعيسو أو إلهي قلبي قلو يدتشي قلبي جيجا مدقنا مدة قبل عير آسنت هاي مدة دور كسنة آسنت هاي نوحن كنا ولا هاي أوهن وحن كنا ولا هاي حنون ما أنت وحيت السكر بقى هيسا سكر تصبح كلا يجو مدعين وإصلاح هذا الكتير بدن يوهن تأن أويو ومدي وكدو ونادو ومركز تمد بكي بسيدي هراء معهن ووح بدن أيا إيجا بدلن مركا إن يسوع دعيان بلشة كحرم بارين أوفيشيال إلهي لو قلبي يقبوتشيو إلهي يدم بدافو إلهي يقعفي الذنوب يدم بيجا أنجلي بيج إلهي معفية لكن إلهي إنه يقعفي الدم بيجا أنجلي صغير كاسيرنا أنك جلي أو محبا إيجا قلبسن أو ما أنت قبل يجي أعنه أيام قعد سنة أنت أيام كسو جبين دونا أنا قلنا محليه ولا إلهي قلبي كو قبوتشيو إلهي سيجاجا إن وسيدو ما أنت كويا سكسي ولكن أكون نقطة لكن أنا قد فكر أهم تيدا قوني ما كوه الله وأسألنا هنيجي أديك إن سيدا أنكو قلت لي أقرح ذا بدن إن شاء الله إن أقعدت أكو قولي ستتبان إلهي كرتينيا بلشة سومالياتنا فكر كذا وحي أكو قولي صوتليان إن شاء الله كوبنتي كأقرسان دونتا إن أصحاب تسي شير قراية وحينك قلت جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.